halkan waxaa igu soo booqday dhalinyaro oo nin la yiraahdo Xuseen Daahir Tabaarak iyo saaxiibadiis marka oo u mahad celinaa horta waxaan salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadibna waan mahad celinaa booqashada ay soo booqdeen malaa'iga booqato ayaga asxaabtooda halkan waa booda dhagorre magacaygu waa Nuur Xasan Faarax Xuseen oo ina eedaday ah sidoo kale asxaabtii saaxiibadiisa la socda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan aan joognana waa booda dhagorre. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa walaalkeen Xuseen Daahir Tabaarak iyo asxaabta la socota sida Liibaan, Faynuus iyo Farxiyo. soo dhaweyn kadib waxaan u mahad celinaynaa adeerkeen Nuur Xasan beertiisa sida booda dhagorre nagu soo dhaweeyay saakan safar ka soo bilaabnay Mareergur ilaa hadda waqtigaan ku suganahay booda dhagorre oo nagu soo dhaweeyay adeer Nuur waxaan ku mahadsan yahay sidoo kale Xuseen iyo tiimkiisa adinka soo dhawaada leenahay ku soo dhawaada gobolka Galgaduud dhamaan deegaanadiisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxa iskale Allah subhanahu wa ta'ala hada marka xigta waxaan u mahad celinaynaa dhamaan asxaabta sida wanaagsan ugu soo dhaweysay deegaanka booda dhagorre waxaan sidoo kale halkan socda dhalinyarada oo maanta soo dhaweynaya dalkan Xuseen Daahir Tabaarak iyo saaxiibadiisa sida Faynuus, Farxiyo iyo Liibaan oo ayagana la socday waxaan soo marnay deegaano badan oo dhulka miyiga ah xanan buro oo aan dhawaan mar dhow ka soo kicitay waxaan la soo gaarnay deegaankan waxaan ugu soo dhaweeyay adeer Nuur Xasan beertan aad u jeedaan aad ka quruxda badan runtii ee lagu bixiyay jahdiga maxaa dalagga kala duwan oo ka baxayo runtii ayaguna si wanaagsan ay nagu soo dhaweeyeen mar kale hadaan ku laabto dhalinyarada Mareergureed waxay la socdaan ama soo dhaweynayaan walaalaheen qaaliga ah oo ka yimid meelo fog sida caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo America intaba marka waxaan leenahay soo dhawaada dhulkiina waa dhulkan ku soo dhawaada dhul qurux badan dalxiis leh barwaaqo nabad ah dhulka Galmudug wuxuu caan ku yahay nabadda iyo dalxiiska iyo beeraha iyo damaashaadka deegaanka booda dhagorre dad badan ayaa waxay markii hadlayeen Liibaan soo dhaweeyeen aniga waxa asxaabta soo dhawaada leeyahay deegaanka waa deegaankeygii waxaan ka soo kacay ismada Galmudug Dhuusamareeb waxaan la socota ka tirsan dhalinyarada degmada deegaanka Mareergur iyo dhalinyaro kale ka wada Dhuusamareeb aad ugu faraxsanahay inaan maanta soo booqano deegaanka booda dhagorre waxaan dhex taaganahay waa beertii deegaanka dhagorre saan u jeedin qurux badan tahay nooc ka soo qudaarta ka baxa aad u mahadsantihiin dhalinyarada maanta nagala timid Dhuusamareeb iyo Mareergur sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaa adeer Nuur Xasan Faarax iyo dadkii beertan juudiga ku bixiyay sidoo kale asagana waxaan u mahad celinaa adeer Xuseen Daahir Tabaarak oo ka imaaday Mareykanka ka imaaday asagana oo maanta dhex taagan booda dhagorre waxaan leeyahay adeer soo dhawow dhalinyarada waa mahadsantihiin dadka deegaanka booda dhagorre gaar ahaan adeerka Nuur Xasan Faarax oo nagu marti qaaday gurigiisa iyo beertan aad ku quruxda badan aad iyo aad u mahadsan yihiin dhamaan bulshada ku nool booda dhagorre iyo dhalinyarada naga soo raacday Mareergur aad iyo aad ayaguna u mahadsan yihiin ad marnay ilaa iyo deegaanada isbaraan saak ka soo baxnay Mareergur soo marnay tuulooyin badan meel waxa ka soo qadeynay laho meel bagara ka soo qadeynay soo soconay markaa waxaan joognaa booda dhagorre waxaan joognaa beerta adeer waxaan u mahad celinaa dhamaan asxaabta tiimka maanta la soo dhaweeyay xaleena insha Allah waa joognaa waa imaan doonaa oo soo laabanaynaa idinkana aad u mahadsantihiin dhawaantiin adeer sidoo kale aad u mahadsantahay. بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى waxaa maaragtay maantay sharaf weyn ii ah inaan soo gaaro dhulkaygii qayb ka mid ah meel maaragtay la'aanteed aan u maleynahay inaan jiritaan lahaan lahayn waa booda dhagorre
waxa waaye meeshaan waxaa la lahaa aniga waxaan u bixin lahaa tuulo jaamac diini waxaan u bixin lahaa waa meesha ka soo askunnay tuulo barwaaqo marka maanta waxaan ugu soo dhaweeyay meeshaan walaalkay Nuur Xasan Faarax jaamac diini oo ah maaragtay deegaanka ah meeshaan la maaragtay ku nool isaga iyo walaalo kale oo hadda maaragtay suurtagelinaysa inay inta noo soo raacaan hadda se waxaa dhex joognaa beertii maaragtay u aas-aasay walaalkeen Nuur maasha Allah meeshaan maaragtay maanta aad ugu nasanay qara iyo maaragtay waxyaabo kale oo badan oo ka baxo oo basal ay ka mid tahay iyo maaragtay kheyraad kale oo aad iyo aad u fara badan ayaa meeshaan ku aragnay kana qaadanay marka waxaan rajaynaynaa maaragtay inuu Ilaahay u barakeeyo maaragtay waxa meeshaan xoolo iyo maaragtay iyo maaragtay beero uu Ilaahay ku siiyay iyo awlaad waxaan rajaynaynaa maaragtay sida aan jecelnahay kulleeyto waxa la kulaal meeshay micin ugu baratay macluul ugu dhimataa marka waa inaan ku soo noqono oo maalin kasta maaragtay anagoo iska socono nala ogeyn aan dalaq soo dhahnaa rajaynaynaa marka insha Allah aad iyo aad aan maaragtay idinkaga mahad celinaynaa dhalinyarada reer Mareer Gureed oo maanta ay soo raacnay oo maaragtay ayakana aan isla soo hargalnay tuuladii la dhahayay Miir Bakeele marka dhamaan aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaya waqti fiican aan isla qaadanay jazakumullahu khayr dad waxaana tiin maaragtay aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan barto iyo la kulankooda kulamo badan oo intaan ka badanna Ilaahay agtiisa inaan ku kulanno iyo meeshaan meel ka khayr badanna waan rajaynayaa insha Allah jannada Ilaahay